markale kulanti wacan oo wanaagsan haddana kusoo dhawaada qodobadii warka oo dhammaystiran war-saxaafadeed wasiirka xafiiska xidhiidhka arrimaha dowladda ee deegaanka Soomaalida mudane Guuleed Cali Kaahin uu ku siiyay stuudiyaha SRTV ayaa wuxuu kaga hadlay xorriyatul qowlka iyo jihada xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida faallada warkana waxa inoo haya wariyaheena Cali Barkhad warmutiyeed ka soo baxay xafiiska xidhiidhka arrimaha dowladda ayaa mudane Guuleed Cali Kaahin oo ah wasiirka xafiiska xidhiidhka arrimaha dowladdu ka warbixiyay fariinta uu gudbinayo bulshada iyo sida xorriyatu qowlka ay u soo dhaweynayso xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida isagoo faahfaahin ka bixiyay qodobada muhiimka ee ku dhaqanka xorriyatu qowlka iyo dastuurku waxa uu ka qabo waxaan xagan fariin uga gudbinaynaa bulshada dowladda deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay xorriyatul qowlka maanta ay dowladdeena cusub ku dhawaaqday ama la tixgelinayo waa mid shakhsi walbaba oo fikirkiisa afkaartiisa iyo aragtidu qabo oo gaarsiin kara bulshada kana hadli karo taasoo si shakhsi iyo si bulsheedba in loo fidiyo xuquuq qofku leeyahay tahay sida ku cad dastuurka dalka iyo deegaanka qodobkiisa 29aad ama ka caalamka Universal Declaration of Human Rights qodobkiisa 19aad qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu gudbiyo afkaartiisa iyo fikirkiisa si nabad ah oo bila cabsi ah bila shuruud ah dhinaca kala digniinta ku socota qaar kamida maamuladii hadda ka hor deegaanka ka fuliyay ku takrifalka awoodeed adeegsadayna shacabkana dhibaatada u geystay iyagoo ku dhaqanka xorriyada qowlka falaliti ku kacaya baryahan dambe adeegsanayana baraha bulshada ama social media kuna baahinaya warar been propaganda iyo kicin bulsho ah oo saliyaraad toonaba lahayn ayuu wasiirku shakhsiyaadkaasi fariin adag dusha uga riday waxana uu sheegay sida tan waxa jira qodobo ka reeban arintaas waxa ka arinta salandarka liida afka qalaad loo yaqaan ama gudbinta xogaha beenta ah in aan gudbino xog been ah ama inaan magac dil ku sameeyno shakhsi bulsho ama hay'ad ba in si khaldan aan been uga sheegno magac dil ku sameeyno waa mid sharciga ka reeban sidoo kale waxa mamnuuc ka ah xorriyatul qowlka incitement waxa loo yaqaano ama in bulsho ama dad ama dhalinyaro ama qayb kamid ah bulshada lagu abaabulo kacdoono abuuraya qalaase iyo rabshad taasoo bulshada iska horkeeni karta shakhsiyaad iska horkeeni karta haddaba waxaan ka daragsanahay in shakhsiyaadkii shalay dambiyada fawaaxishka ah ka fuliyay dowladda deegaanka Soomaalida ay dowladda cusub u fidisay cafiska wali iyagoo nabaradii ay dadka u geysteen ayna bogsanin ama nabaradii ay si muuqdaan inay haddana isku dayaan inay sameeyaan iyagoo xorriyatul qowlka maanta la fasaxay ka faa'iideysanaya arrimo iska horkeenaya bulshada ama dhibaatooyin waxaan daba dhihi lahaa in ay arinta ka taxadiraan ama hays dhihina cafisku kama dhigna ilowsho cafisku kama dhigna in aan la isweydiin karin dambigii iyo faldambeedyadii shalay dadkaasi galeen waxaase looga digayaa isku dayada hadda sharci darrada ay isku dayayaan dowladdu waa mid ay xogteed ka dharagsan tahay si buuxdana loo hayo arintaad maleegaysaan arrin meel gaadhisa maaha qalaasi rabshadna deegaanka maanta lagama fulin karo waxa aan halkan iga cadeynayna in dhammaan hay'adaha ammaanka ee deegaanku si buuxda ay hawshaas gacanta ugu dhigayaan cidii ka waantoobi weyda ee cafiska loo fidiyay ka faa'iideysan weydana in hay'aduhu ay sharciga horgeeyaan laguna xisaabtamayo faldambiyeedka hadda gacanta kula jiraan iyo kay hore u sameeyeenba marka waxaan dhihi lahaa in dhammaan dhalinyarada dowladda deegaanka Soomaalida ay ka hortagaan kuwa falalkii argagixiso ee shalay deegaanka ka dhacay kuwa lamid ah in maantana ka sameeyaan raba meel kasta ay ku sugan yihiinba waxaan leenahay ka tanaasula faraha ka laabta wayna ahayn hay'adaha sharciga iyo cidii qoysayso inay si buuxda la xisaabtanto sharciga la isku horgeeyo wixii horena lagu xisaabtamo ayay noqon doontaa mudane Guuleed Cali Kaahin madaxa xafiiska xiriirka arrimaha dowladda ayaa wuxuu sidoo kale tooshka ku shiday sida xukuumaddu u soo xulanayso hogaaminta gobolada degmooyinka maamul magaalooyinka ugu dambeyntii wasiirku waxa uu fariintiisa ugu dambeysay uu gudbinayo ku cadeeyay sida tan waxaan jecelahay inaan fariin halkan uga gudbiyo dhammaan dhalinyarada aqoonyahanka dowladda deegaanka Soomaalida fursadda qaaliga hadda xukuumaddu bixisay waxa weeye in dhalinyarada laga qayb geliyo hogaaminta deegaanka korila hoos taasoo hadda lagu guda jiro xulashada hogaaminta maamulada gobolada magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka taasoo shuruud cad loo dhigay kana si cadna tartan inay u galaan dhalinyartu nin walba boosku ku guuleysto oo aqoonteedii khibradeedii leeyahay loo tixgeliyo loona qaadan doono haddaba waxaan dhihi lahaa dhalinyartu inay hogaaminta loo xil saaray hadda gobolada ee shaqada gacanta ku haysa iyagoo u diyaar garoobaya ama si buuxda ugu tartamaya shuruudaha lagu xidhayaana ay tahay aqoontooda khibradda ay shaqada u leeyihiin
anshaxa iyo sumcadda wanaagsan ay bulshada dhexdeeda ku leeyihiin aaminsanida iyo hoggaansanka shuruucda dalka dastuurka laga bilaabo boolisiyada iyo istaraatiijiyadaha u yaalla dowladda deegaanka iyo dalkaba inay ka go-an tahay inay hirgeliyaan marka waxaan leeyahay si xor ah oo madax bannaan oo cadcadaan leh inaad howlaha ugu tartantaan nin walbana kaalintu ilaahay ugu qoray ka qaato isla markaana aad garab istaagtaan dhammaan hay-adaha amniga ee dowladda deegaanka soomaalida iyo kuwa dalkaba ee sugaya amniga cid wal oo amni darro sameynaysana gacan bira inaad ku qabataan ayaan mar labaad inaga codsanaa aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu